qodob ku xiga waxa weeyaan akhristaha wanaagsani wuxuu isweydiiyaa 6 su'aalood buu isweydiiyaa 6 su'aalood waxa weeyaan kow akhristaha wanaagsani waa ka garanaya waxa uu akhriyo wuxuu oranayaa maxaan akhriyaa sheego uu akhriyo uu garanaya lambar 2 ujeedada uu sheegan uu akhriyo ama sababta uu sheegan uu akhriyo uu garanaya lambar 3 halka uu ku akhriyo nooca ay tahay ama meesha ay tahay uu garanaya dadku meelo kala duwan bay wax ku akhriyaan ujeedooyin kala duwan oo akhriyaan marka akhristaha wanaagsan wuxuu garanayaa ama su'aashu isweydiinaya waxa weeyaan meesha ama halka uu ku akhriyo su'aasha afraad isweydiinaya waa goorma ayaan akhriyaa xilli ayuu leeyahay akhristaha wanaagsan oo akhriyo dadku xilliyada wax akhriyaan way kala duwan yihiin dadka qaarkood aroortii bay akhriyaan dadka qaarkood habeenkii bay akhriyaan galabtii bay akhriyaan ujeedadka way kala duwan yihiin meelaha ama halka ay ku akhriyaan marka akhristaha wanaagsan su'aasha afraad isweydiiyay waxa weeyaan waa meesha uu ku akhriyo su'aasha shanaad ee akhristaha isweydiiyay waxa weeyaan sideen u akhriyaa qaabkeen u akhriyaa akhriskaygu ma mid kooban baayo waxaan sameynayaa ishaan wada marinaya ma mid waxa weeyaan kulba meesha aan doonayaan target gareynaya ma waxa weeyaan mid ku qotama wixii loo yaqaanay degdeg baan u akhriyaa marka waa qof garanaya sida uu akhriyo su'aasha shanaad waxa weeyaan intee in leeg ayaan akhriyaa imisa daqiiqaan akhriyaa imisa saacadood baan akhriyaa imisa maalmood baan akhriyaa waa qof garanaya inta cisho ama inta maalmood ama inta jeer shayga uu akhriyo